qisada naxdinta leh waxay ugu dhacday markii aan jirdaadii 11aad waxaa la noolaa aabahay iyo walaashay iga weyn waxaana ku nooleen guri aad weyn oo qurux badan kuna yaala xaafad miyi ah balse haweenada kamid ah aniga qolkayga ku jira waxaan arkay islaan waayeel ah oo afka u yeela dhig markaas si fiican u eegay arrintu waxay eegayd mid qiyaali ah waan rumaysan karay waxaan arkay aydan waxay mid aad u qaylinaysa waxaan isdhahay walaashay ku ciyaaraysa waxayna doonaysaa inay ka cafsiiso balse maalintii xigtay aniga qolka soo gal waxaan arkay islaantii waxaan xaqiiqsaday arrintii inay tahay mid dhab ah islaantii waxay isku dayday inay qabsato waan ka soo cararnay oo qaylinaya balse ayadu waxay doonaysaa inay si degdeg ah ugu soo baxsay walaashay ayaan u qayliyay aydan ma maqli karin maxaa yeelay waxay daawanaysaa TV-ga si degdeg ah waxaan u qabsaday mobilkayga waxaana wacay booliiskii nasiib wanaag si degdeg waxay ku yimaadeen guriga booliiskii waxaana xireen islaantii balse mid kamid askarta ayaa noo sheegay in islaanta midad cun ah waliba cuni jirtay caruurta mudana la weysanaa waxaana la ogaaday guriga ay degneed